عشان markii dawladdu burburtay oo dagaalada sokeeyay ma jireen horta wax dagaalo sokeeya dagaalka ka dhacay la taariikhdaas kala marka laga soo bilaabo dagaalo sokeeya oo maalmooda waa jireen dhibka hayay wuxuu ahay burcad waxa la yiraahdo ayaa hayay oo aad ugu farabadnay amba tuugada dadku yaqaaniin ayaa ugu farabadnay dagaalada kale waxay ahayn dagaalo sokeeye oo gaagaaba xaf marna lagu maray oo dadka meelo badan haysto amba yaan maaragtaa qaybta muqdisho dhinaceed amba baydhabo iyo dadka waxa dhacay mar bayna mareen maalin laba maalmood ayna kala raacdeen waxaan haysana naga dhaceen hore inoo gudbeen muqdisho iyo dhulkaas ay u gudbeen waa gartay dagaaladaas inta ka dhacay sidee qaabkee loo xaliyay maxaa soo baxay wixii dagaal idin marayna ma rabo kuwa yaryarka ama burcad ha sababsho ama sababo kala u dhacaan deegaankan dadku deegaan ka dhex dhaca sidee loo xaliyay qaabkee xalka dagaaladaas waxaa jira odayaal dhaqameedyo badan iyo culumaatiin iyo ugaasyo iyo imaanyo ayay qabiilaad ku qabaan dadkaas ayaa dhaxgalay warsaana ma anfacday waxa cadawga oo sukayna diray aan iska qabanno ayaa lagu xaliyay dadkaas duubabka iyo ayaa dhaxday oo kala noqday kadibna waxaan anigu saas ay nooga caday waxaan naga qabtay Muuse Suudiyada Xaaji Muuse kadibna waxaan anigu saas ay nooga caday waxaan naga qabtay Muuse Suudiyada Xaaji Muuse nabadgelyada uu loo soo noqdo hadda midda taagan ka hor sidee maxaa dhibaatooyinka nabadgelyo ee deegaankan uu soo maray sidaase loo xaliyay hadda midda hadda ku sugantiin ka hor kuwii ka horreeyay dadka aad looga sheekeynaysa see markii nabadgelyo daradaas see loo wajihi jiray amba beel kastaba waxaa u xidhneed cad yar ay leedahay anigaale ayaa u xidhneed iyada ama dadka markaas ku dhacaysa amba waa laga saba gudbaa faataxada quraanka naloo aqriyo alaliya si aan ugu gudubno meeshaas saas ayay cid walba meeshooda ugu xirnay waa maxay qaab dhismeedka maamulka hadda ka jira degmada